howlaha guriga. Maanta waxaan rabaa inaan kaa yareeyo culayska aad ka dareemayso qabashada howlaha guriga. Waxaad tahay saxaabiyad. Waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad gali lahayd guryaha gabdhaha kale ee saxaabiyaadka ah si aad noloshooda uga soo ogaato wax badan. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay maalin sida ay gabdhahaas ku qaadan jireen waqtigooda. Ma waxaa u malaysaa inay ahaayeen sidanoo kale, inay wax bartaan oo wax cunaan oo wax kariyaan oo kaliya. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso dumarkaas saxaabiyaadka ah iyo nimankooda waxay ka sheekaysan jireen sida ay maantaba u sheekaystaan lamaanaha. Saxaabiyadda, maantan waxaan booqanaynaa mid ka mid ah guryaha uu nebigaaga Muxammad ah aadka u jeclaa uu aadka u booqan jiray. Waxaan tegaynaa guriga Faadima bintu Muxammad, marwada dumarka ahlu jannaha oo dhan. Faadima, ninkeeda Cali bin Abi Daalib, ayay u sheegaysaa culayska iyo rafaadka ay ku dareento howlaha guriga. Wuxuu yidhi Cali, orod nebiga sallallahu calayhi wasallam noo soo weydii shaqaale. Faadima waxay u tagtay nebiga sallallahu calayhi wasallam, balse waxaa la joogay dadkaas hortoodana ugama aysan sheegan danteeda. Hooyo Caaisha ayaa u sheegtay waxay u timid, kadibna waxay u laabatay gurigeeda. Nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uu dhammaystay kulankiisa, hooyo Caaisha ayaa waxay u sheegtay culayska ay Faadimo ku qabto howlaha guriga, ayna u baahan tahay shaqaale. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu aaday markaas guriga Faadima. Wuxuu tagay iyada iyo ninkeeda isku diyaarinayo hurdo. Wuxuu ka dalbaday inuu soo galo. Markii uu soo galayna wuxuu ku yidhi, ma idin sheegaa wax idinkaga wanaagsan shaqaale? Marka aad seexanaysaan 33 mar waxaa dhahdaan Allahu Akbar, 33 marna waxaa dhahdaan Subxaanallah, 33 marna waxaa dhahdaan Alxamdulillaah. Kaas ayaa idinkaga wanaagsan shaqaale. Saxaabiyadda, Faadima bintu Muxammad waa marwada dumarka ahlu jannaha. Waxay nadiifinaysaa gurigeeda, waxay karsanaysaa cuntadeeda, waxay qabsanaysaa howlaheeda kale. Bal aan ku weydiiye, qiimaheeda ma ku nuqsaamaya intaas? Saxaabiyadda, adigana waxba ha dhegaysan hadalka ay meelaha ka leeyihiin ciidanka shaydaanka. Waxay rabaan inay kaa dumiyaan guriga. Hawsha gurigaaga ayay kaaga dhigayaan jaxiimo. Waxay rabaan xorriyaddooda beenta ah inay ku dumiyaan guryaha. Sinaanta ay ku doodayaanna waxay rabaan carruurteena inay ku tuuraan waddooyinka oo ay noqdaan wicillo. Shayddaamadaas addoonsiga waxay u yaqaanaan marwada inay ka shaqayso gurigeeda. Jaxiimadana waxay u yaqaanaan inay ninkeeda iyo carruurteeda wax u kariso. Faadima bintu Muxammad karaamo daro kuma ahayn inay ka adeegto gurigeeda. Ninkeeda wuxuu ahaa faqiir, mana uusan awoodin inuu u keeno shaqaale. Bal aan ku weydiiye, maxay samayn lahayd marka? Waxay tuuraysaa carruurteeda oo waxay aadaysaa guriga aabaheed. Taas miyaa ah xorriyadda iyo geesinimada iyo sinaanta? Mise waxaa u taqaanaa mas'uuliyad darro? Aabaheed oo nebiga ahna ma uusan u yeelin shaqaalo. Haddii uu siin lahaana waxaa ku waajibi lahayd gabar walba oo muslimad ah inuu u yeelo shaqaale, mana uusan awoodin midaas. Bal aan ku weydiiyo mar kale, oo waxay leedahay wuxuu iga heliyey ninkayga. Taas miyaa ah xorriyadda iyo ilbaxnimada iyo horumarka? Mise waa caasinimo iyo danaystanimo iyo qallafsanaan? Saxaabiyadda, dhagaha wiyaysan noqonin god qashin ah oo laga buuxiyo fikradahaas quranka ah. Shayddaamadaas waxay qiimeeyeen ummadda muslimka ah iyo siday u dhisan yihiin guryaha oo aysan u dumaynin. Waxay kaloo qiimeeyeen xaaska muslimadda ah sida ugu sabrayso wax walba. Waxay kaloo qiimeeyeen siduu aabbaha ugu dulqaadanayo culeysyada nolosha si uu karaamada qoyskiisa u ilaaliyo. Waxay aad u qiimeeyeen sida guryaha muslimiinta ah loogu ilaalinayo salaada, qoys walbana oo hal miis wax ugu wada cunayo. Waxay kaloo qiimeeyeen xijaabka iyo dhowrsanida. Wax walba iyagoo sameeyey, haddana ma aysan awoodin dhibaataynta muslimiinta. Balse waxaa jiro arrin ay ku guulaysteen, waana in gabadha muslimadda ah ay ka saareen gurigeeda. Waayo iyada ayaa ah udub-dhexaadka guriga iyo mid isku haysa qoyska. Saxaabiyadda, haddii aad tiraahdo shaqada guriga waa mid adag oo lagu daalayo, waxa aan ku leeyahay noloshaani waa nolol adduun. Qof walbana kaalin ayuu ka leeyahay. Shaqo walbana waxay leedahay culays. Bal fiiri hareerahaaga, ma jirtaa shaqo aan lahayn culays? Dadku waxay qodayaan saxaraha nolosha si ay rooti u helaan. Xitaa shaqada kula sahlan waxay leedahay culays haddii uusan ku muuqan adiga.
madaxda iyo shaqaalaha mid walba wuxuu ka sheeganayaa lafa xanuun. Aan ku weydiiyo mar kale, ma waxaa sahlan shaqada ciidannimada mise waxaa sahlan dhakhtarnimada oo qofka loo wici karo xilli walba haddii ay wax dhacaan? Xitaa siyaasadda waxay leedahay walwal iyo walbahaar. Nolosha adduunka wax raaxo la yiraahdo ma jiraan saxaabiyaday. wax walbo qiimo leh waa lagu dadaalay. Kaba soo tag bani aadamka, soo ma aadan arkin shimbirka marka uu dhisayo gurigiisa mar ballaan inuu keeno. Quraanshada soo ma aadan arkin inay habeenii maalin shaqaynayso si ay wax u hesho. Adduunka cid walba way shaqaynaysaa, dadaal ayayna bixinaysaa. Qof walbana wuxuu dareemaa daalka aad dareemayso oo kale. Adigana waxaa joogtaa adduunkan ee shaqayso oo ajarkaada ka sug Rabbiga. Saxaabiyadda, shaqaalo in hesha waxba kuma soo kordhinayso. Haddii aadan helinna adduunka ma dhammaanayo, qoyskana ma dumaayo. Haddii marwada ay ka shaqayso gurigeeda, kaas waa waajibkeeda. Haddii ay qabatana waxaa lagu siinayaa ajir, sida ninkaba ay waajib ugu tahay inuu ka soo shaqeeyo bannaanka. Wax walbo oo qabanayso Rabbiga uga xisaabso ajir, beddelna aragtidaada ku aadan nolosha. Ma tihid shaqaale marka aad qabanayso howlaha gurigaaga. Adiga ayaa leh guriga, adiga ayaana mas'uul ka ah. Alle sokadiina adiga ayaa laga rabaa inaad ilaaliso. Adiga la'aanta wuu dayacmayaa guriga, wuuna burburayaa. Waxba ha fiirinin dadaalka aad bixinayso mar walba. Haddaad rabto inaad ogaato qiimaha waxaa qabanayso ay leeyihiin, bal sawiro hal mar marka aadan qaban shaqadaas siday wax noqonayaan. Mar kale waxaan ku leeyahay, wax walbo aad qabanayso Alle dartii u qabo, Rabbigaana ajar uga xisaabso. Ogow, malaa'igta mar walba way qoraysaa shaqo walbo aad qabanayso. Hana iloobin beer walba oo qoyan in laga helo ajir. Mar walba ay cunayaan carruurtaada iyo ninkaaga, waxaa u karisay adiga, waxaa ku leedahay ajir. Mar walba aad diyaarinayso afur, qof walba cuna afurkaas, waxaa ku leedahay ajir. Mar walba aad nadiifinayso dharka carruurtaada iyo ninkaaga, waxaa ku leedahay ajir. Xaraf walba aad barto carruurtaada, waxaa ku leedahay ajir. Wanaag walba u qabanayso ninkaaga, waxaa ku leedahay ajir. Mar walba waxaa ku jiraysaa cibaado haddii niyadaada aad wanaajiso. Nolosha adduunka wax walbo aan qabanayno waxay noqonayaan cibaado haddii aan wanaajino niyadeena. Tusaale, haddii adiga iyo qoyskaaga ay isku raacdaan dalxiis, qoyskaaga waxay ku jirayaan dalxiiska, adiguna waxaa ku jiraysaa cibaado. Waayo waxaa xiran tahay xijaab. Xijaabkuna waa aayad quraan ah, waana amarka Alle. xijaabkuna waa aayad quraan ah, waana amarka Alle.